laakiin ka xukuumadahan sida uu nagu hogaaminayo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi waxa ka go'an xukuumadan inaanu u sameeyno dhalinyaradayada shaqo abuur qaab kasta oo aanu u mari karnana aanu u marno haddii aan ka jawaabo si kooban su'aasha aad weydiisay ee shaqaalaha run ahaantii xeerka shaqada iyo shaqaaluhu ee hay'adda shaqaaluhu wax buu qorayaa temporary wax la yiraahdo totally kuma jirto waxaan oran karayaa dadkaasi waxay isugu jireen laba nooc labada nooc oo ahaa noocna soo dhaweynta in dhalinyarada loo abuuro fursado ama la dhiiri geliyo iyo nooc jeclaysi quruxda madaxtooyada inay ka shaqeeyaan wasaaradda kale bedel ka soo qaatay qolyaha bedelka ku yimin waxaan leeyahay calafsada wasaaradihiina kulli waa la wada qurxinaya insha Allah kuwa maxaan raadayay temporary-ga ana waxaan leeyahay waxa loo mari doonaa sifo sharciga waafaqsan hay'adda shaqaalaha ayaa taana ka jawaabideeda mas'uulka iyo qaabka loo maamuli doono